kulanti wanaagsan daawadayaal oo markale iyo barnaamijkeennii xog waran iyo maanta waa maalmo Isniin ah 17 bisha 8 sanadka 2020 qodobada wararkeena koowaad aan igu haynana waxaa kamid ah ciidamada amniga dawladda oo xalay xilli dambe soo afsaray weerarkii Hotel Aleyd dawladda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay khasaaraha ka dhashay weerarkii lagu qaaday Hotel Aleyd kulamo hordhaw shirka Dhuusamareeb trio ka socda magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug maamulka Puntland oo shuruud adag ku xiray ka qaybgalka shirka Dhuusamareeb trio al-shabaab oo weerar ku bilowday qarax ismidaamin ah ku qaaday deegaanka Koofguduud ee gobolka Bay iyo Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka oo dib u bilaabaya hawlgallo qodobadaas iyo qodobo kale daawadayaal intaanu ku jirno barnaamijkeena xog waran aad ku daawan doontaan fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka warbaahinta xog waran subscribe saar channelka kambalka riix si aysan kuu seegin wararkeena dambe mahadsanid markale kulan wanaagsan aan ku bilaabe ciidamada amniga ayaa ku guuleystay inay soo afjiraan weerar ay dabli hubeysan oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen Hotel Aleyd ee magaalada Muqdisho sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda waxa la dilay dhammaan dableydii weerarka geysatay oo tiradooda lagu sheegay ilaa 4 ruux hoteelka ayaa waxaa laga soo saaray dad ku godoonsanaa kuwaasoo isku jiray dad hoteelka deganaa shaqaalaha hoteelka ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka ayadoo weerarkaasina ay cambaarayeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya hoteelka Aleyd ayaa waxa uu ka mid yahay hoteelada ugu waaweyn isagoo ku yaala goob istiraatiiji ah kuna dhagan xeebta Liide ee magaalada Muqdisho waxaana hoteelkan iska leh Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya horena u soo noqday wasiir dawlihii wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya xilligii Xasan Sheikh dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa waxay ka hadashay khasaaraha ka dhashay weerarkii lagu qaaday Hotel Aleyd dawladda Soomaaliya faahfaahin ka bixisay weerar ku bilowday qarax gaari oo ka dhacay Hotel Aleyd ee magaalada Muqdisho afayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Sidiiq Aadan Cali oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in dad badan oo shacab ah oo ku sugnaa Hotel Aleyd iyo kuwa wadada marayay ay wax ku noqdeen qaraxaasi iyo weerarka al-shabaab ay soo qaadeen isagoona sheegay in 16 qof ay dhinteen halka 13 qof oo kale ay dhaawacmeen afayeenka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay toogteen 5 nin oo hubeysan kuwaasi oo harkii weerarka soo qaaday khasaaraha ugu badan weerarka ayaa waxa uu soo gaaray dadka rayidka kadib markii gaari ku qarxay agagaarka iridda hore ee laga galo hoteelka dadka weerarkan ku dhintay ayaa waxa kamid ah gaasimihii xiriirka gobolada ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdirasaaq Cabdulaahi Cabdi iyo Daahir Cali oo ka tirsan hawlwadeennada wasaaradda kaashandhigga Soomaaliya sidoo kale waxa dadka ku dhaawacmay kamid ah wasiirka howlaha guud ee Galmudug Axmed Washington sawir qaade ka tirsan telefishinka qaranka iyo fanaanad ka tirsan kooxda Heegan nawaaxiga xeebta Lido ayaa ah meelaha ay sida badan u aadaan dadka rayidka ah iyo shaqaalaha dawladda markana Dhuusamareeb madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa kulan hordhac ah shirka wadatashiga Dhuusamareeb waxa uu la qaatay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filishe madaxda ayaa waxa ay isku xog wareysteen hanaanka geedi socodka doorashooyinka dalka xaaladda siyaasadeed iyo amni ayagoona si wada shir u cambaariyay weerarkii al-shabaab ay ka fuliyeen mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho waxayna uga tacsiiyeen qoysaskii eheladii iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed dadkii halkaas ku geeriyooday sidoo kale madaxda ayaa waxay adkeeyeen muhiimadda ay midnimada iyo wadashirku u leeyihiin dagaalka dhanka al-shabaab dawladdiska ciidanka qalabka sida iyo xaqiijinta heegsiga shacabka Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo ayaa ku bogaadiyay madaxweynayaasha Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir sida ay uga go'an tahay inay si ambaqaadaan wadahadal mudaysnaa heer federaal iyo heer dawlad goboleed taasoo laga wareysanayo hanaanka doorashooyinka dalka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa horay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya iyo magaalada Dhuusamareeb waxa uu kulamo gaar ah kula qaatay madaxda Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyadoo kulamadaasi waxyaabihii ka soo baxayna aan saxaafadda lala wadaagin lama oga waqtiga uu si rasmi ah u furmayo shirka wadatashiga Dhuusamareeb ayadoo xubnaha beesha caalamka ay cadaadis ku saarayaan madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland inay tagaan Dhuusamareeb dhinaca kale maamulka Puntland ayaa shuruud adag waxa uu ku xiray ka qaybgalka shirka Dhuusamareeb 3
war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada maamulka Puntland ayaa waxaa lagu cadeeyay mowqifkooda ku aadan ka qaybgalka shirka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada uga furmaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Puntland waxa ay sheegtay inay marka hore bogaadinayso qodobadii ka soo baxay shirkii ugu horeeyay hore uga dhacay magaalada Dhuusamareeb, sidoo kalena ay ka xun tahay go'aankii sharci darrada ahaa ee golaha shacabka ay ku rideen xukuumaddii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka Puntland oo aad u dheer ayaa waxaa sidoo kale lagu taageeray hadalkii shalay ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Puntland ayaa soo bandhigtay sababaha ay ku diiday ka qaybgalka wajiga saddexaad ee shirka magaalada Dhuusamareeb, waxaanay soo saartay 5 shuruudood oo ku saabsan xaaladda dalka iyo go'aamada ka soo bixi kara shirka, kuwaas oo kala ah in baarlamaanka ay si aan sharci ahayn ay u rideen xukuumaddii ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, in madaxweynaha si aan waafaqsaneyn dastuurka uu magacaabay sahayaha xilka ra'iisul wasaaraha kaas oo ka soo horjeeda sida ay sheegeen dastuurka dalka, in madaxweynaha uu si farsamo ahaan u daahiyay soo magacaabista ra'iisul wasaare si aysan u hirgelin is-afgaradka Dhuusamareeb 2 iyo qabsoomidda Dhuusamareeb 3, in dowladda federaalka si la tashi la'aan ay isugu gaar yeeshay talada iyo tirada guddiga farsamada ee ka tala bixinta arrimaha doorashooyinka, iyo in khudbadda madaxweynaha Soomaaliya uu ka jeediyay kulankii baarlamaanka ay ahayd mid muujinaysa sida ay madaxweynaha uga go'an tahay marhabaabinta dadaalada ay dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka si isla ogol ah looga wada shaqeyn lahaa qabsoomidda doorashada 2021. maamulka Puntland ayaa ka soo qaybgalka shirka waxa uu ku xiray damaanad qaadka beesha caalamka, waxaana ay sheegeen in beesha caalamka ay soo fargeliso oo ay goobjoog ka noqdo shirka. weli warbaahinta xog waran baa nagala socotaan markana haddii aan eegno gobolka Bay, deegaanka Goofgaduud ee gobolka Bay ayaa waxaa ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab. dagaalkan ayaa waxa uu ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, waxaana xigay dagaal toos oo dhex maray labada dhinac. weerarkan ayaa ka socda dhowr jiho oo u dhow xero ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin deegaanka, waxaana la maqlayaa rastaasta ay isku adeegsanayaan askarta dowladda iyo al-shabaab. maamulka deegaanka Goofgaduud ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay iska caabiyeen al-shabaab, dagaalkana uu ka socdo meel ka baxsan saldhigga askarta deegaanku ay ku sugnaayeen. dhinaca kale al-shabaab ayaa waxay sheegteen inay gacanta ku dhigeen saldhigga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Goofgaduud oo dhaca duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. dagaalkan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac, inkastoo aan loogeyn inta uu gaarsiisan yahay, waxaana weli socda dagaalka labada dhinac u dhexeeya. al-shabaab ee maalmihii u dambeeyay waxay kordhiyeen weerarada ay ku qaadayaan saldhigyada ciidamada dowladda. wixii ka soo kordha weerarkan inta ka socda deegaanka Goofgaduud ee gobolka Bayna, wararkana dambe aad ku maqli doontaan. markana Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa Talaadada bilaabaya howlgallada sanadlaha ee sida wadashirka ah ay u qabtaan ciidamada militariga labada dal, taasi oo warbaahinta maxalliga ay ku warmayso inay dib uga dhacday 2 maalmood xilligii loo qorsheeyay kadib markii sarkaal u dhashay Kuuriyada Koonfureed laga helay cudurka COVID-19. tababarkan ayaa waxaa la sheegay inuu bilaaban doono maalinta Talaadada, waxaana hore qorshe u ahaa in la bilaabo Axaddii shalay soo dhaafay, iyadoo dib loo riixay kadib tijaabo caafimaad oo Jimcihii lagu sameeyay sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda kaas oo qayb ka noqon lahaa tababarkan isku dhafka ah ayaa waxaa si dhow la socda Kuuriyada Waqooyi oo ugu yeertay inuu yahay u diyaargarow dagaal. guud ahaan intaas ay ku saafmeerinaa barnaamijkeennii xog warriya maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka warbaahinta xog waran, subscribe saar channelka gambaleelkan riix si aysan kuu seegin wararkeena dambe. mahadsanid.